marka hore horta waa la isfagaareeyay wax badan waan hadalnay waan isaga baahnayn laakiin waqtiga aad noogu yaraa runtii dad badan oo mudnaa in la siiyo waqtiga uma saamixin marka hore mine iyo teamkeeda gabdhaha qurxoon oo aadka u abaabulay madashaan waa mahadsantihiin ayaan leeyahay marka xigto su-aashii gabadha yareydna warsatay oo ahayd 30%ga maxaa loo waafajin waayey dhammaan hay-adaha dawliga ah runtii waxaan shirkaanba waxay ka dhalatay in qaabkii wax lagu raadin jiray lagu guuldaraystay hadda baarlamaanka doorashadiisa 30%ga in la gaaray iska dhaafay 24kii hore loo haystay ayaan sanadkan la heli doonin marka ma ahan runtii in la raysgareynin ma ahan arrintan maxaa agaasimayaal guud loo heli waayey maxaa agaasimo wax loo heli waayey maxaa waa la raysgareeyaa runtii shirar badan haweenka isugu imaadana waa laga hadlaa ka wasaarad ahaan runtii waxaan sameynaa barnaamij looga hadlo advocacy ayaan sameynaa hadda waxaan ku talagelin inaan guddi u saarno oo soo sameynaa maabin si xogtaas aan u baahino laakiin waxaan aaminsanahay waxaas oo dhan inaan ku guuldareysanay sidii lagu raadin jiray awal wadadii hore oo aan haynay hadda marka waxaan u baahanahay waxay tahay in gabdhaha la empower gareeyo runtii mararka qaar qofka mas'uulka ah ama wasiirka ah ama hay'ad mas'uulka ah qof markaad xulanaysid genderkiis wax ma kaa gelin muhiimaddu waxay tahay qofka xirfadaas la shaqadaas fulin karo ayaa dooranaysaa aniga wasaaradda ayaan joogaa muddada aan joogay runtii gabdho fiican oo ila shaqeeyo oo aniga aan ku doorto xirfadooda ayaa jiro oo si gaar ah wasaaradda shaqooyin haayo aan empower gay sidoo kale wiilashana marka muhiimadda marka waxaa waaye annaka inaan diyaarino gabdho xirfad u leh shaqooyinka dawladda iyagana commitment ku jiro oo ah inay ka go'an tahay inay waddankan u shaqeeyaan siday fartuun idin sheegaysay ayaa gabar walba ay maraysaa weli markaad dhalinyaro tahay aniga dadka waxaan ka mid ahay hooyooyinka ku noqday iyagoo shaqeynaya noo xildhibaanad ayaan labadeeda gabdhoodba aan runtii dhalay alxamdulilah one dayna shaqada kamaan maqnayn marka waxaan ugu talagalnay madashaan waxay ahayd in annaga marka hore aan gabdhaha diyaarino horta gabdha ay ka go'an tahay oo xirfadiina leh capacityna leh in la helo waan aaminsan hadaad xirfadii leedahay oo capacitygii leedahay in marnaba aadan fursad weyneynin ani muddadii aan dawladda u shaqeynayay anoo agaasimo wasaaradka dhowr shaqaan helaayay waxay la soo xiriirayay kuwa private sector leh waxay la soo xiriirayay hay'ado UN international NGOs oo idhahay marba offer isiinayaan oo shaqo haysto waxaa keenay maadaama aha qof public soo istaagi karo hadli karto oo la arkayo shaqadayda ayaa keenaysay marka shaqada always fursad way jirtaa laakiin waxaan u baahanahay inaan weegii hore gabdhaha hala siiyo aan wax ka bedelno waayo haddii gabdhaha hala siiyo wax lagugu siiyo adigana meesha aad fadhisid hadhow there is no point dhibaatooyinkii nagu dhacay 2016kina way ahayd ani waan qabaa doorashadan dambe inaan wax lana siiyo waxba lagu raadinin gabadha ay ka go'an tahay xildhibaan rabto inay iyada soo diyaariso reerkeeda ka soo diyaarsato ay loobin gasho ay kursigeeda soo hesho waayo markaas waxay ogaanaysaa value-ga waxay haysato laakiin markii lagu siiyo hala siiyo oo markii lagu siiyana meeshii aad fariisatid gabdhaha kalena waad blogareynaysaa waayo markaad haddaan la imaan weysa commitmentigii sidii fartuun sheegaysay markii hadda agaasimaha loo maqday approve gareyn weysay shaqada inay qaban karto hadda ma joogi lahayn marka dhammaanteen saasaa noo balan ah mind iyo maxaa la dhahaa centerka gaarka ah oo horumarinta haweenka waxaan ka codsanaynaa madasha inay badiso waxaan u malayn panelka inuu aad u badnaa haddii lasoo koobi lahaa su-aalahana waqti loo heli lahaa marka kolley reportkayna idinka kusoo saari doono sidoo kale in la sameeyo traininyo ama programyo gabdhaha lagu empower gareynayo tan kale waxaa muhiim ah volunteerismka inaad waqtigaaga siin kartid inaad si mutadawanimo islaqaanimo ku shaqeyn kartid oo shaqo aad ku qaban kartid adoon lacag ka sugaynin inaad ka shaqeyn kartid muhiimad gaar ayay leedahay kalsoonidana waa guushaada kalsoonida naftaada kuugu horeyso haddaadan kalsooni isku qabin haddaadan aaminsanayn shaqada aad hayso inaad ka mid dhalin kartid runtii ma wadi kartid dhammaantiin waa mahadsantihiin waqtiga aad ayuu u dheeraa waxaan rajaynayaa inaan kulamo kale isugu imaano raggana hanaga raali noqdaano runtii aniga hooyo oo caruur dhashaan nahay laakiin dadka supporterskayga ugu badan familkayga ilaahay u naxariisto aabbahay aan ka heli jiray haddana abtigeeya runtii ah ilaahay ii dhaafay ayaantaan igama qaaday supporterka ugu weyn qofka taageeraha ugu weyn aan haysto oo always dhiirigeliyo hooyaday macaan kama marna
marka ragga markasta iyagana waxay noo yihiin dad oo taageero noo ah marka waa maasantiin dhammaantiina